Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiin waxaan horey noogu sii socda casharadeenii taxanaha ahaa ee barashada suuqa forex maanta waxaan soo gudbinaynaa cashirkeenii labaad ee candlestick-ga fadlan haddii aadan soo daawanin cashirkii hore ee ahaa waa maxay candlestick kalarada candlestick-ga iyo magaca candlestick-ga halka uu ka yimid iyo waxa uu yahay candlestick dib ugu laabo cashirkeenii ahaa waa maxay candlestick soo fahan kadibna imaw halkan markaas ayaad fahmi kartaa waxa uu ku saabsan yahay cashirkeenan laakiin adigoonan soo daawan kii hore kan haddii aadan intermediate ahayn ama advance ahayn oo basic aad tahay waxaad u baahan tahay inaad kii hore ku laabato haddii aad la qabsan kartana fadlan soo dhawaaw cashirkeeni ayaan guda gelaynaa cashirkeenan waa candlestick-yada ugu muhiimsan ee suuqa reversalka ku sameeya ama jihada suuqa bedela in suuqan uu jihadiisa bedelanayo jiha cusub samaysanayo waxa kuu confirmation garaynayo waa candlestick-yadan ugu muhiimsan ee aan ku soo xulay candleka koowaad waxaa la yidhahdaa high testy candle high testy candlekan wuxuu dhacaa qaybta sare ee trendka ayuu dhacaa qaybta sare ee trendka ayuu dhacaa isagoo si dheer usoo rejection gareeya oo week dheer la baxa ayaad ku arkaysaa up trendka upkiisa amaba structureka korkiisa ayaad ku arkaysaa kadib waxaad ogaanaysaa in suuqan uu diiday amaba laga rejection gareeyey baydii ee uu u socdo sell set up markaasna suuqan sell confirmation ah ayaad ku helaysaa oo trendka korkiisa markii uu kugu sameeyo high test candlekan waxaad ogaanaysaa in suuqii kala wareeg uu diyaar u yahay uu sell soo aadi doono waana candle powerful ah oo tilmaama in suuqa jihadiisii uu bedelanayo oo sell soo aadayo waxaa kaleetoon haysanaa low test candle oo isagana dhaca qaybta hoose ee trendka ayuu dhacaa oo waxa badanaa aad ka helaysid waa double bottomka oo kale ayaad waxaad ka helaysaa low test candlekan ama descendingka oo kale ayuu ku sameeyaa qaybta hoose isagoo suuqa kala wareejiya oo candlekan markaad aragtay inuu low test candlekan ku sameeyey double bottomka ama descendingka waxaad ogaanaysaa confirmation inaad haysatid in suuqii uu diyaar u yahay in uu aado up in uu aado amaba in uu buy aado ayaad ogaanaysaa oo low test candleka powerful wuxuu ku yahay confirmationkiisa in suuqa jihadii sellka ahayd uu rejection dheer oo week ah ku sameeyo kadibna uu aado buy waxaan haysanaa halkan doji candle ayaan haysanaa doji candleka laba qayb ayuu u samaysmaa isagana mid waa sidaan oo kaleeto aad ayuu u dheeryahay midna aad ayuu u gaaban yahay oo sidan oo kale ayuu u egyahay mar walibana halkan ayuu barayska u furma kan xirmaa doojiga oo qaybtaas dhexe ayuu body yar ku leeyahay doojigan wuxuu dhacaa qaybta hoose iyo qaybta kore ayadaba asagana waad ka helaysaa doojiga oo waa candle reversal ah oo suuqii kala wareejiyo badanaa waxaad arkaysaa haddii aad haysatay ascending pattern oo kale haddii aad haysatay oo structureka sidaan oo ascendingka ku ahaa ascendingka sidaan markii aad ku aragto halkan haddii aad ka aragto doji candle in uu samaysmay waxaad ogaanaysaa confirmationkaagii sellset up ka ahaa oo aad ku markii horeetaba patternkan aad eeganaysay in mar saddexaad uu kusoo taabto structureka oo isdhamaystiro kadibna uu sell soo aado haddii aad halkan ka hesho doji candle confirmation waxaad haysataa in suuqii uu 100% uu confirm gareeyey in uu soo kala wareegi doono uu sell soo aadi doono sidaas ayaadna doji candleka uga faa'iidaysanaysaa in uu kuu tilmaamo in uu suuqii hoos u dhacayo uu sell soo aadayo waxaan haysanaa halkan twitter tops ayaan haysanaa oo ah high test candle oo laba mar soo laabtay high test candlekan iyo twitter topkan waa isku mid marka koowaad oo aad aragtay in uu candlekan samaysmay ayaa waxaa dhacayso in mar labaad isagiioo kale uu samaysmo markan waa powerful
oo 100% waxaad haysataa in suuqan sell set up xoogan move xoogan oo sell ah in uu imaan doono top of the trend haddaad ka aragto in uu twitter top ku sameeyey confirmationkaaga uu kuu dhamaystiran yahay suuqaasna jihadii ayuu bedelinayaa oo sell ayuu aadaya halkan twitter tops ayaan ku haysanaa oo asagana powerful ah oo la mid ah low testigan oo 2 mar soo laabtay waxayna macnaheeda tahay confirmation buuxa in aad haysatid oo 100% suuqan in uu jihadii bedelanayo oo aadayo buy uu aadayo waxaan haysanaa halkan bullish engulfing candle ayaan haysanaa oo asagana candle aad iyo aad powerful u ah candlekan waa candle suuqa candleka ugu weyn ee suuqa dhaqaajiyo ayaa waxaa loo yaqaanaa bullish engulfing candle bullish engulfing candleka wuxuu dhacaa qaybta hoose ayuu ka dhacaa badanaa isagoo impulsive sameeya kadibna annaga waxaan sugnaa correctionkaas kadibna waxaan raacnaa impulsiveka kaleeto ayaan raacnaa oo mar waliba haddii aad haysanin low twitter topskaas iyo low testi candlekaas haddii aadan haysanin waxaad helaysaa bullish engulfing ayaad helaysaa oo isagana confirmation kugu ah in suuqii uu buy aadayo waxaan haysanaa halkan bearish engulfing candle ayaan haysanaa oo asagana ah bilcagsigiisa bullish engulfing candleka ah oo isagu kan wuxuu tilmaamaa in suuqii sell uu yahay ayuu tilmaamaa oo waa candle asagana powerful ah haddii aadan haysanin high test candleka iyo twitter topskaas aadan helin waxaad heli kartaa bearish engulfingka ayaad heli kartaa oo si cajiib ah ayuu impulsive usoo sameeya oo usoo dhaqaaqaa kadibna intrigaaga correctionka ayaad ka helaysaa oo aad halkaas ayaan ka galnaa waxaana noo xaqiijiyo bearish engulfingkan suuqii in uu selleriskii in ay la wareegeen uu sell aadayo one how retrace candle ayaan haysanaa halkan oo aad iyo aad aniga aan u isticmaalo uguna trade gareeyo one how retrace candlekan si fiican haddii aad u fahamtidna wax badan ayuu asagana kaa caawin doonaa oo macnaheedu ay tahay price markii hore waa isku mid meesha ay ka furmayaan iyo meesha ay ka xirmayaan labadan candle waa isku mid haddii aad aragto labadan candle oo one hour markaa time frameka joogtid in ay sidan ku wada sameeyaan confirmation waxaad haysataa suuqii in jihadiisii uu bedeshay uu sell aadi doono ayaad haysataa halkan haddii uu candleka guduud yahay halkanna buluug yahay waxaad ayadan haysataa in jihadii sellka ahaa uu suuqii bedeshay uu buy aaday haddeertan candleka sida uu sawiran yahay oo qaybtan gaduudka ah qaybtanna buluuga ah halkan waxay tilmaamaysaa in sell uu suuqii yahay oo wuxuu suuqu soo rejection gareeyey one howlkii candleka ahaa mid lamid ah oo rejection ayaa dhacay confirmation waxaad haysataa in jihadii ay selleriskii la wareegeen oo suuqii jihadii bedelanayo ayaad haysataa candleka saddexaad ee aan haysano waa hanging man ha ku qaldin ma ahan sida low testi candle oo kaleeta ma ahan waa candle asaga tilmaama in suuqii uu sell yahay ayuu tilmaamaa low testi candleku isagu wuxuu tilmaamaa in buy uu yahay si fiican haddii aad u fiirisid hangimanka halkan cirif ayuu ku leeyahay oo week dheer ayuu la baxaa laakiin low testiga asagu cirif ma lahan priceku isla halkii ayuu ka bilaabaa taas ayaa waxaad ku kala garanaysaa hangimanka iyo low testi hangimanka wuxuu sheegaa in suuqii uu yahay sell in uu yahay laakiin low testi candleka wuxuu sheegaa suuqii in uu buy yahay halkan waxaan ku haysanaa asagana morning star ayaan ku haysanaa morning starka suuqa asaga mar waliba waa reversal asagana oo jihada suuqa ayuu bedelaa wuxuuna ka dhacaa time frame dheer ayuu ka dhacaa sida 1 week amaba 1 day oo kale ayaa waxaad ka helaysaa time frameka 1 day ama 1 week markaad joogtid waxaad helaysaa morning star ama evening star ayaad helaysaa morning starka wuxuu kuu sheegayaa ama confirmation ku siinayaa in suuqii buy uu yahay oo buy loo sii push garay doono ayuu kuu sheegayaa halka evening starka uu kuu sheegayo suuqii isagana in sell loo push garay doono halkan marka aad joogto morning starka wuxuu u egyahay ku qaab egyahay sida one hour retrace candleka ayuu ku qaab egyahay
oo laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin waxa ah candle-kan yar ee u eg doji candle-ka ayaa dhexda uga jira. Candle-kan hadduu halkan ku jiro oo doji candle-kan u eg oo qaybta dhexe ku samaysma haddii uu halkan ku jiro waxaad arkaysaa in uu yahay morning star in uu yahay ayaad arkaysaa. Halkaas ayaadna waxaad ka qaadanaysaa confirmation-ka dailyga ama haddaad ku heshid weeklyga haddaad ku heshid in suuqaas jihadiisii uu bedelanayo oo buy uu aadayo ayaad arkaysaa. Halkan waa bilcagsigeeda asagana waxaan haysanaa evening star ayaan haysanaa oo asagana tilmaama in suuqa jihadiisii uu bedelanayo oo sell uu aadayo ayaan haysanaa. Halkan waa sidoo kale asagana haddii aad 1 hour retrace candle-ka aad ku aragto in halkan uu ku samaysmay sida doji candle-kan kaleeto qaybta dhexe waxaad arkaysaa inuu jihadii bedelanayo oo suuqan sell soo aadaya aad arkaysaa. Saaxiibayaal kuwan haddii aad si fiican u fahantid candlestick-yadan waa kuwa iga caawiya aniga. Kow waxa ii ah structure, laba waxa ii ah candlestick. Structure-ka waa number 1, number 2 waa candlestick. Runtii candlestick haddii aad pattern-ka dhexdiisa ka hesho candlestick-yadan aan kuu sheegayo sida haddii aad ka hesho qaybta sare oo top of structure ah amaba low haddii aad ka hesho candle-ladan oo reversal-ka ah xaqiiq waxa ah in 100% aan tijaabiyey oo ay yihiin profitable ay yihiin kuwo faa'iido badan leh in ay yihiin ayaan ku xaqiijinayaa. Candlestick-yadan ku baractir garay soona hel soona kuna dabaq istiraatiijiyadaada ku dabaq. waa dhammaantiin aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa. Saaxiibayaal noo subscribe gareeya channel-ka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.